diblomaasiyadda. Qodobada ama maanta wararka ku daawa doontaan waxaa ugu waaweyn dalka iyo xaaladaha diblomaasiyadda dalalka Tunisia iyo Imaaraadka Carabta oo kacsan kadib markay isku khilaafeen dhacdo ay sameeyeen ama samaysay shirkadda duulimaadka Emirates baadariga diinta Katoliga oo markaasi ka hadlay qadiyadda Quds isla markaana taageeray xalka labada dal. dalkii labaad oo ku dhawaaqay inay safaaradooda u rarayaan magaalada Quds ee barakaysan isla markaana ay la safteen Mareykanka. qodobadaas iyo Turkiga ayaa ku dhawaaqday in ayaga iyo ciidamada Turkiga iyo kuwa Ruushka iskaashanaya ay dad ka soo dalbareed doonaan deegaan ama degmo ka tirsan magaalada Dimashq ee xarunta dalkaasi Syria. Warqaraal oo ka soo baxay aqalka madaxtooyada ee Ankara ee dalkaasi Turkiga ayaa lagu sheegay in ciidamada labada dal oo ciidamo gaar u tababaran ay ka soo dalbareed doonaan xaafadda Quta ee magaalada ama dhinaca koonfureed ee magaalada Dimashq ee xarunta dalkaasi Syria dad ku go'doonsan kuwaasoo la sheegay in ay ciidamada dalkaasi ka amar qaata rajiimka ama ninka majacanjaxaha Asad ay la diriirsan yihiin isla markaana halkaasi ay ku gudoomiyeen dad shacab oo lixaad labada dal ayaa waxay ka yaabiyeen dunida inta badan kadib markay sheegeen in ciidamadoodu ay si howlgal gaara oo marka si loo eego ka dhana madaxweyne Asad isla markaana lagu badbaadinayo dadka go'oonsan ay qaadayaan taasoo warbaahinta Mareykanka aad u soo jeedatay isla markaana lagu falanqeynayay sida looga saaray doorkii uu Mareykanku ku lahaa dalka Syria. labada dal ayaa la sheegay inay soo dhawaasho dhinaca security ama dhinaca aan iraahdo hay'adaha amniga wardoonka iyo wada shaqaynta lahaayeen tan iyo biyihii ugu dambeeyey iyadoo dhawaan ayay ahayd markii dowladda dalkaasi Ruushka ay ku dhawaaqday in cutubyo ka mid ah ciidankeeda ay ka gurayso ama ka dadguranayso dalkaasi Syria si ay u qanciso isla markaana u meelmariso heshiiskii magaalada Astana ku dhex maray madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo weliba madaxweyne Vladimir Putin oo kala xaqiijiyay waxayna sheegeen in la sameeyo doono deegaano ka tirsan xataa gudaha magaalada xarunta Dimashq oo xabadda ka caaganaa doona isla markaana lagu badbaadi doono dadka reer Syria ee doonaya inay gudaha dalkooda ku noqdaan. madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa si khaldan oo la dhaqmay si khalad ka fahmay andhaho nin markaasi jacayl baahsan u qabay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. madaxweynaha oo hadal ka jeedinayay gobolka la yiraahdo Sirnak ee dalkaasi Turkiga ayaa waxaa hadal ku soo booday nin dhalinyaro ah oo la sheegay inuu 30 jir yahay kaasoo intuu ka soo korbooday markaasi qaybtii VIP lahayd ee madaxweynuhu khudbadda ka jeedinayay iyo dadka hore isagoo hore fadhiyay korka kaga yimid madaxweynaha isla markaana hab damcay inuu siiyo waxaana si xoogan uga hortagay kolkii uu gaaray ama uu qabtay labada garab madaxweynaha isla markaana uu damcay inuu shaqo geliyo waxaa ka hortagay ilaalada madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo si halhaleel ah uga dhuftay isla markaana banaanka u tuuray. Hussein Demirkan ayaa la sheegay in laga saaray stage-ka ama goobtii uu hadalka madaxweynuhu ka jeedinayay hase yeeshee waxaa la sheegay in goor dambe uu sheegay kadib markii sirdoonku waraysteen inuu isagu yahay kasoo jeedo qoys uu sheegay inay yihiin mujaahidiin kuwaasoo 13 ka mid ah reerkiisa lagu laayay weerar ay soo qaadeen kooxda PKK sanadkii 1987 kuwaasoo galay xaafad ka tirsan gobolka Sirnak isla markaana dilay dad badan oo qoyska ninkaasi ahaa wuxuuna yiri anigu waxaan ahay in jecel dadka ka jeedinayay in aan siiyo hab oo aan shaqo geliyo taasna way fahmi diideen ayuu yiri madaxdii ilaalinaysay iyo dadkii ammaankiisa sugayay balse ma jirin buu wax kale oo dhibaato aan u geysan karo buu yiri madaxweynahayga waxaana la sheegay in taa kadib la sii daayay xubin u hadashay xisbiga talada haya dalkaasi Ekipart ayaa oleerada Mahir Unel ayaa wuxuu sheegay in qatiyadu ay ahayd markaasi wuxuu ugu yeeray wiil ay ka soo jeedeen qoys halgamayaal oo doonaya inuu madaxweynaha uu siiyo hab isla markaana aysan jirin wax dabacsanaan dhinaca amniga ah maadaama uu dadka gudaha ku jiray oo dhan markii hore lasoo wada baaray isla markaana aysan jirin cid hub sidatay balse wiilkuna uu ahaa nin uu qaaday markaasi jibbo jacayl oo madaxweynaha uu qabay isla markaana uu hab siiyay madaxweynaha isla markaana uu doonayay inuu dhunkado taas sidaas daraadeedna uu asagoo xataa laftiisu qirtay Hussein in qaabka uu u jibooday uusan ogeyn isla markaana hal mar ay saarkay isagoo stage-ka ku booday oo madaxweynaha markaasi dhowr miisin ka dulbooday isla markaana dhowr saf oo dad ah jiray haatan markii dambana damcay inuu madaxweynaha habsiyo waxaana loo ballan qaaday in madaxweyne Recep Tayyip Erdogan loo geeyo doono isla markaana lala kulansiin doono kadib markii uu si xoogan
wajibooday wiilkaas jacaylka lixaad kale u qaaday madaxweynihiisa maalintiina wararkii kale ayna gelin ma dhibsataa inaad aragto sawirro iyo waxyaabo badan oo ay soo daabacaan dadka kala duwan ama shirkado iyo asxaabta aad taqaano ee bartaada Facebook haddaba waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho barnaamijka cusub ee Facebook ay soo kordhisay ee u bixisay Snips wuxuu kuu fududeynayaa in aad si kumeel gaara isaga joojiso qofka aadan doonaynin inaad aragto fariimihiisa uu baahinayo hadday yihiin kuwa colaadeed hadday yihiin kuwa nacay iyo hadday yihiin kuwa hurineed ama kuwa malaayacni ah oo dhaqan xumo shirkadda Facebook waxay